الحمد لله الذي شرف العلم وأهله ورفع قدرهم في الكتاب والسنة بقوله جل في علاه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال مصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثم أما بعد، علماء مدح شرفت له وزيرة والدينتا معلمينتا ماملك معد الرسالة أرضيدا ويلال إيا حبلبات دمان وحانكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka koobaad waxaan u mahadnaqayaa Allah subhanahu wa ta'ala isugu kaaya keenay xafladan qiimaha badan leh. waxaan u mahadnaqayaa marka labaad inta kadib waxaan u mahadnaqayaa culimada sharafta leh ee nagala soo qayb gashay xafladda, wasiirada, waalidiinta. waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa maamulka macad risaala iyo macallimiinta u hagar baxay si ay u soo saaraan arday aqoon leh diintooda iyo dalkoodaba anfacda. walaalayaal saynu wada ogsoonahay cilmigu waa shayga aynu ugu baahi badannahay. waxa uu leeyahay imaamu Ahmed rahimahullah الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. قفك وحو علمك أو باهنيه أما إذاك علمك أو باهنين أي حاجة بدنه أي باهي بدنهم بير عنده يا شرابك محايا لي بيري qofku waxa uu baahdaa cunada iyo sharaabka ama cunada iyo cabitaanka waxa uu baahdaa maalinkii mar ama laba mar, laakiin cilmiga waxa uu baahanayaa inta uu hawada qaadanayo oo kale. cilmigu waa shayga qofku uu ku yeelanayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu kaga dhowrsado oo kaga cabsado. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa nimaan libaax garanayn baa lax ka rita, waxaanad garanayn hadaa kama cabsan kartid. haddii uu libaax halka ka soo galo dhamaanteen waan isku wada yaacayna, laakiin qof inaga mid ah haduunan aqoon u lahayn wuxuu sooranayaa waxan meesha soo galay ka yarasaa. marka saas darteed Allah subhanahu wa ta'ala isagoo noo tilmaamaya dadka Ilaahay ka cabsaday inay culimada yihiin ayaa Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa waxa uu ku yiri inma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Ilaahay subhanahu wa ta'ala inma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ka cabsadoon adoomihiisa kuwa culimada ah. cilmigu waa shayga qofka ka dhigaya inuu bulshada ka hormaro. cilmigu waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay fadlul aalimi ala al-aabid ka fadlil qamari ala saa'iril kawaakib. fadliga uu dheeryahay qofka caalimku qofka cibaadeysta caabidka ah waxay isdheerihiin sida ay xidigaha iyo dayixu ay isku dheeryihiin. cilmiga waxaynu ognahay walaalayaal aanu aad uga wada daragsanahay qofka aqoonta leh iyo qofka aan aqoonta lahayn inaynan sinayn. Ilaahi subhanahu wa ta'ala arrinka isagoo ina weydiinaya waxa uu yiri amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri miyay simanihiin dadka aqoonta leh iyo dadka aan aqoonta lahayn. aqoontu maalka ayay ka fadli badan tahay. waxay leeyihiin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waxa uu yiri cilmiga marka uu ka waramayay fadliga uu dheer yahay maalka waxa uu yiri al-ilmu yahrusuka. cilmigu adiga ayuu ku ilaalinaya wal maalu tahrusuhu. maalkana adiga ayaa ilaalinaya. hatta noloshana way ku kala fadli badan yihiin, geeridana way ku kala fadli badan yihiin. Umar bin Khattab radiyallahu anhu waxa uu yiri la mawt aalimin ashaddu min mawt alf aabid. dhimashada qofka caalimka ah waxay ka daran tahay kun qof oo cibaadeysta dhimashadooda. marka qofka caalimku sharaftaas uu leeyahay. waxaanu ognahay walaalayaal cilmigaas aynu ka soo waranay ayaa macadkeena risaala loo furay. ujeedooyinka macadka loo furay waxaa ka mid ah faafinta culumta sharciga islaamka si loo diyaariyo qof muslim ah oo aqoon leh iyo waay la socod. laba waxaa ka mid ah ujeedooyinka macadka loo furay ku faafinta wadanka luqadda carabiga iyo qaybaheeda kala gedisan. saddex waxaa macadka loo furay ka dhaadhicinta bulshada fikirka togan ee dhaxdhaxaadka ah. afar waxaa macadka loo furay tababaro ku saabsan sare u qaadida heerka ardayda. waqtigo iska kooban iyo martido fara badan
waxaan ku soo koobayaa kelmadaydaas intaas. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. جزاك الله خير الجزاء. الله بركيه شيخ رضوان كلمة قيمة لا ينوجدي كل يوحنا لا يفان ولا فريق ما قدنا برنامجكي ولي وابلو هذا بلو ينويه وعن هذا ويريا أو نقد بنيا ميكروفون كا الأشبال فريق المعهد وينصب بدي دونا رنتي نشيدة iyo hadii lahay midinkeeda leeyahay xiwaari rokooban hadii alla qadaro runtii waa fariiq aad u dhisan waan wada arki doonaa hadii lahay qadaro inkastoo daadooda iyo aqoonta ku jirta aana islahayn waayahay waxaan ku wareejinayaa mikrofoonka fariiqul ashbaal qaybtii qasiidada nashiidada oo akhriyo hadii lahay qadaro ku soo dhawaadaan mikrofoonka.